qiso jacayl oo murugo badan. Adduunyadu waa imtixaan, way dhibaato iyo murugo badan tahay. Dadku isku si uma wajahdo, waxayna qof walba ku qaabishaa weji gooni. Qaar baa farxad iyo reereen ku qaato waqtigoodii, qaar baa inta badan ku nool yihiin caro aan dhammaad lahayn iyo uur ku taal. Dhalinyaro lagu cidleeyay jacaylka markay islahaayeen geedka canshaqa harso. Maxaa mucaanshaq ku maqnaa suuryadii, xilli oo islahaa ilaatayay hawshii la gaaray, ruux kale laga raacay. Cabdiqani wuxuu ku dhashay degmada Yaaqshiid, xaafadda suuqa xoolaha. Wuxuu iga codsaday inaan ila wadaago qisadan xanuunka badan. Jacayl lama filaan kugu galay, laxaw caanshaq kugu beeray, lagama ladnaan karo. 10kii January 2020 waxaan isbaranay gabar lagu magacaabo Caasho. Caasho waxaan isku baranay goob farmashi oo walaalkeeda leeyahay. Caasho waxay ahayd barashadeedii mid aad ii soo jiidatay, waxaana dhexmaray jacayl aad u baaxad weyn. Aniga waxaan ahay makhluuq dantiisa garanaynin, qof walbo wanaagiisa lama xaqiro, xataa hadduu dhiiggiisa ku daadiyey. Maalin waxaa dhacday inaan taleefon ka waco Caasho, banaanka u soo baxaan mar inaan wax kuu sheega rabaa. haa ii sheeg maxaa jiro. Daryaan aniga jabiga ilama fiicno, waayo waxaan arkaa caanshaqaaga xoogo inuu sii guraayo, balse aniga markaan kuu soo dhowaanayo waad iga sii durqaysaa. Ma xasuustaa balamii adiga aad qaaday, balse aniga waan xasuustaa waqti walba hadaladii ay dhihi jirtay. aawi jacaylka naga dhexeeya. hay haddaan isjecel nahayne hadalka muhiimkiisa ma isiin kartaa? qaali, qof walba oo dunidan saaran mowqif ayuu leeyahay. aniga mowqifkayga waa adiga, hamigaygana waa adiga. aniga adi harri ayaan wada leenahay, taas ma daraysan tahay? laakiin aniga taas kuma riyoon. haddii aadan koryoonin, haddaba anigaa koryooday. aniga waxaan rabaa inaan ku soo doonto. dhegahaaga ma maqlan hadalka afkaaga ka soo baxaayo? iska hadal uma hadlaayo, hadal walba oo afkayga ka soo baxaayo waan ka fiirsaday. laakiin aniga taas kuma riyoon. aniga kuma fakirin inaan ku guursado. aaway jacaylka naga dhexeeyey, aaway galgacaylkii, aaway is-aaminaadii, aaway kalsoonidii. jacaylkee ka hadle? jacaylkaaga maxaan ka faa'iidaa? raashinka kala nooca aan gurigeena ka cuno ma isiin karaa jacaylkaaga? jacaylkaaga gaari ma ii noqonaa? jacaylkee ka hadle? jacaylkaaga ma isiin karaa lacag markaan shoobin soo samaysanayo? ii jawaab. aniga noloshaada waan kafaale qaadi karaa, wax walba aad u baahan tahay waan kuu samayn karaa. aniga waxaan kuu hayaa jacayl. waxaas mar hore ayay ahaayeen. aniga ma guursan karo qof faqiir ah oo aan awoodin waxaan rabo inuu ii sameeyo. wax walba aad u baahan tahay aniga ayaan kuu samaynaa. i dhegayso, farxadda waa lacag, waxaan kaa iloobay inaan kuu sheego. waxaa isoo doonta nin ganacsado ah oo lacag leh, waana guursan rabaa. okay, hadalkaaga ma sidana? Caasho, canshaqa ciyaar ma ahan. ceyl iyo calool xumo ruuxii cindigiisa ku beerto caafimaad ku waari maysid. caadil waa allah, caafimaad isagaan siin karo. calooshaydii waan xirtay, ruux u cabaadi maayo. cimri qaadasho intaana igu filan. bye.